أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز ولكن أنا من الحسن وحاتو سلواتين كان كان مقال بالراشن إن شاء الله مقال كان ما أنت ديالين وحنكو برندونا أبليكيشن كان أدو جدين أبليكيشن كان وحلو مع سكوير فيديو لو مع هدي أدي استعمال شد بدنا إن استوريجا إن فيسبوك أي واتساب كإيميلا استوريجا أدي اللي جودن أبليكيشن كان وقام في عدونا هدي أد بدنا أصحاب الاستوريات هاي أبليكيشن كان ريالي وحياة بدنا يقام في عدونا application kan square video waxyaabo uu qabanayo waxa kamid ah inaad ku edit gareysid muuqaal sidoo kale inaad ku edit gareysid sawir anika ma hadli doona insha Allah qaabka loogu edit gareeyo sawirka hadii aad la soo degtid application ka uu iska fudud yahay marka waxaan ka hadlayaa qaabka loogu edit gareeyo muuqaalka waxyaabo aad kugu sameyn kartid videoga square videogan aad kugu edit gareyn kartid waxa kamid ah muuqaalka inaad colorka aad ka bedeli kartid muuqaalka inaad ku soo dari kartid qoraalo muuqaalka inaad ku soo dari kartid emoji ama qof walba sidoo uu yaqaano stickers marka application kan waxaan ku soo dhigi doonaa square videoga commentiga ugu horeeyaan ku soo dhigi doonaa sidoo kale description ku soo dhigi doonaa insha Allah hadii aad u baahan tahay qaybta Google Play Store ka gal waxaad ku qoraysaa square video aad ku qoraysaa application ka markuu telefoonkaaga soo galo waad furaysaa application ka markaad soo furtid tan ay kugu soo furmi doonaa waad u jeedin intaan oo qayb ayuu ka kooban yahay ilaa 6 qaybood ayuu ka kooban yahay qaybta ugu horeysa aan ka hadlayo waxay tahay square ka qaybta lagu edit gareeyo muuqaalka marka qaybta waxaan ku dhufanayaa square ka aan ku dhufanayaa kadib muuqaalkan ayaa igu jiro muuqaalkan ayaan soo doornay muuqaalka markaan soo doorto waad u jeedin ugu horeen application ka wuxuu sameeyay muuqaalkii ay wuxuu sameeyay background isla muuqaalkii oo blurna uu ku furay marka hadii aad u baahan tahay blurka inaad ku badisid ama aad ka yareysid waxaad soo furaysaa icon kan ugu horeeyo ayaad soo furaysaa kadib qaybtan ushan aad u jeedin waxaad ku sameyn kartaa background ka muuqaalka aad waxaad ku sameyn kartaa blurka aad ku yareyn kartaa aad ka badin kartaa hadaadan u baahnayn colorradan aad isticmaali kartaa aniga waxaan isticmaalay colorkan black xigeenka aan isticmaalay kadib qaybta hoose waxaan ku dhufanayaa dismiss ayaan ku dhufanayaa sidoo kale waxa ku soo xiga icon ka kale waxaad ku sameyn kartaa color correction muuqaalkeedu waxaad kaga bedeli kartaa colorkiisa waad u jeedin intaan oo color ayuu leeyahay marka waxaan dhan black and white hadii aad u baahan tahay waad ka dhigi kartaa marka intaan dhan kama wada gaareyno qaybtan iftiinka xoogaa yar muuqaalka uu ku soo darayo colorkan aan dooranaya kadib intaan oo dhan waad tijaabin kartaa waxaan ku dhufanayaa dismiss aan ku dhufanayaa xoogaa yar muuqaalkii effectiga wuxuu ku sameeyay aan soo doortay colorna uu ku furay xoogaa iftiin uu ku badiyay sidoo kale icon-ka kale oo ku soo xig waxa waaye waad ku jajari kartaa muuqaalkaaga ushan waxaad ka sameyn kartaa meeshan waxa waaye meeshuu ku dhamaanay muuqaalka waad ka soo jiidi kartaa qaybta dhexe hadii aad u baahan tahay sidaan aad sameyn kartaa marka bilow ayaan u baahanahay ilaa iyo waxaan ka dhigayaa 23 second ba iska dheh kadib qaybta hoose waxaan ku dhufanayaa dismiss ayaan ku dhufanayaa sidoo kale icon-ka kale oo ku soo xig waxaad ku sameyn kartaa muuqaalkii aad waxaad ku soo dari kartaa cod ayaad ku soo dari kartaa music aad waxaad u baahan tahay aad ku soo dari kartaa qaybtan markaan hadda uma baahan inaan wax ku soo daro sidoo kale TT-ga ku soo xig waxaad ku sameyn kartaa muuqaalkii ayaad waxaad ku soo dari kartaa qoraal marka qoraalkan ayaan ku soo daray sidoo kale qaybtan waxaad ku sameyn kartaa colorka ayaad ku sameyn kartaa qoraalka aad ku soo dartay marka isla colorkan ayaan ku sameynayaa sidoo kale icon kale oo inta saaran waxaad ku sameyn kartaa isna qoraalkii aad waxaad u sameyn kartaa shadow sida qof walba u fahmaayo marka shadowga sidaan ba noogada calaamada kore ee tigta ayaan ku dhufanayaa kadib waxaad dhigaysaa qoraalkaada meesha uu ku haboon yahay aad dhigaysaa marka qoraalka sidoo kale waxaad u sameyn kartaa waad ka bedeli kartaa qoraalo kalena waad ku soo dari kartaa qoraalka ilaa iyo 2-3 waad ku soo dari kartaa intaad u baahan tahay marka isla qoraalkan ba noogada sidoo kale icon-kan kale emojina waad ku soo darsan kartaa hadii aad u baahan tahay waad u jeedin really application-ka wuxuu leeyahay emojiyaal aad u qurux badan ayuu leeyahay waad u jeedinayaan filaya kuwaana love ayuu ka turjumayaa kuwan waa xayawaano kuwana emojigii oo telefoonka caadiga ah taqaaneen waa kuwan kalena waxa waaye application-ka si gudgala application-ka waxyaabo badan uu leeyahay marka emojigan ugu horeeya ayaan ku deenayaa muuqaalkayga wuxuu ka turjumayaa muuqaal iska funny waaye marka emoji waxaan soo dooranayaa oo funny isla emojigan ayaan soo dooranayaa kadib waxaan dhigay emojigaada waxaad ku sameyn kartaa waad soo weyneyn kartaa waad yareyn kartaa
marka waxaan dhigayaa meelahan ayaan dhigayaa. Sidoo kale icon-kan kale ugu dambeeyo oo saddexda ulood isdul saaran waxaad samayn kartaa muuqaalkaada marba dhankaad rabtid u jeedin kartaa icon-kan ugu horeeya. Sidoo kale up and down ayaad samayn kartaa. sidoo kale waxaad samayn kartaa rotation aad ku samayn kartaa muuqaalkaaga. icon-kan kale ugu dambeeyna waxaad ku samayn kartaa size-ka muuqaalkaada aad soo weyneyn kartaa. kadib dismiss aad ku dhufanaysaa. marka ani hadda qosolkan yaro emoji-gan labadan ilkood uu leeyahay meelahan ii soo dhig. marka waxaan ku dhufanay calaamadda saxda kore ayaan ku dhufanayaa. guys waad u jeedin hadda muuqaalkii wuxuu sameynayaa produce ayuu sameynayaa. marka aynu aragno qaabku ku soo saari doono insha Allah markuu produce ku dhameeyo aynu arki doonaa insha Allah. waad u jeedin hadda muuqaalkan siitan ayuu noogu dhameeyay produce-kii. waxaanu ka raadinaynaa qaybta videos-kan ka raadinaynaa. marka muuqaalkan ugu horeeya aynu soo sameynay muuqaalkan ayaan ku dhufanaynaa. marka guys waad u jeedin xogaa khalad oo waxaan sameynay emoji-gii ayaan xogaa hoos aynu gelinay. marka intaan kalena waad sii hagaajin kartaa. marka guys application-kan waxyaabo badan uu ku qaban doona insha Allah. waxaan jeclahay marka application-kan inaan la wadaago walaalkiin Adam Nur Xasan oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.